هاتي نول براتامو وروح لا يسكو صبحو بديدود حاوين كابا وانت تيك السيداتا وعنا وناكسن داوديال مeel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni xiisaha iyo xogaha gaar xambaarsanaayo fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii hal mar aad ka daawataan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Boorama barnaamijkan daawadayaal sida caadada waxaan ku soo marti qaadnaa fanaaniin abwaaniin jilayaal iyo waliba cid kastoo ka dhex muuqata suugaanta iyo halabuurka toddobaadkan dabcan daawadayaal ayaad filaysiin aan agteeda soo fadhiisiyo ay garabkaygana ka muuqdaan وحفصة أحمد كامل يولي محمد حسين كاهية لبضوا طبعا داوديال عاو برنامج كأي مرتئي بيه ونسودو وينيا كنا سودو هذا برنامج كفان كي سوغانتا يستوديا بلوشة تي في طبعا أدبان غفر أحسنا إنه تطبات كان أدي قلق قاتان برنامج كي نفان كي سوغانتا إنه دائر أو كصوبير يسوغانتا يالابوركا مسوين فربنا بعد نوعين دونتين بس إحنا ويدين يا إني قوم بديسن بالتاريخ دينا طبعا وحتيهن سوغان يهانو مسوين يا قويات تريسين dadku suugaantaha minigu aqaanaan bal taariikhdeena waxaan ku horeynayaa xamsi haye ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم marka hore anigu kaga mahadcelinayaa sida qurux badan ee marti qaatay marka xiga anigu magacayga waxa la xamsi Axmed Kaamil Xawaale waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan ku barbaaray magaalada Boorama waxbarashadii dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare waxaan ku qaatay magaalada Boorama iminka waxaan ahay arday ku jira marka tababarka saxaafadda runtii taariikhdu iyo badan sameeyay weliba taayir baan ahay taasi uu laaliyo لكن أنا مكسوية. محمد يسوونا يقوم مرتي عاوة داودير برنامج حي. الحمد لله رب العالمين. طبعا أدبان سلام يا برنامجك أما تيفيكا كل شيء تيفي. هذان يركضان كيرادو تاريخ ذا واحد كل شيء مجال داما ودن كجوتي لكن أنتي بدنا داما نولا شيء دي واحد كقاطي بورنا. وانكو برباري هذا واحد برشة هاي يا هذا يتهاي با كوريتان مركا وحويان مر انتي مدرسان ويشري عيان بانغانا ساي بانغري هذانا ولي ثالث دي هاي طبعا waxaad abwaaniin hadda waxa laga yaabaa dad badani inay nigarnaya si doonto ha noqoto ma jirtiin inaad garab ka heshiin waayo maasooyinka fara badan ee tirnaysiin iyo kaalmaha badan ee ka qayb qaadanaysiin bulshada geeriga kala duwan yaad garab ka heshiin oo xusi kartiin xamso runtii inuu hay su'aal aad iyo aad u qurux badan waqtiga fanka halka uu maray inuu hay wixii ka dambeeyay 1991 taageerihiisa iyo kaalintiisa intii runtii inay gaabeen abwaanintii ka soo kacaya iyo waliba abwaanintii hore labadayaduba haddana tar arab ku dhuftay abwaanintii ka soo kacaysa waa kamid ahay iyo saaxiibka xasan kamid yihiin runtii ma jirto wax kaalmo ah oo cid laga helaa ma jirto isku duwii wasaaradda hidaha iyo dhaqanka ee u qaabilsanaa hawshan lahaa meelo lagu hadlayo fan iyo meelo lagu hadlayo runtii barnaamijyo ay gelina inta wala ma arko 1991 wixii ka horreeyay waxaan ognahay fanka gobolada galbeedka gaar ahaan Siidhigo kale halka uu marayay iyo barxaad ku jiray maanta halka uu marayo waan ognahay waa salaamiya kooxda Adal Bandis oo runtii aad iyo aad rabta inay soo celiso dadar geliso fanka gobolada galbeedka aad baan salaamaya laakiin wax kaalmo ma jirto fikir buu qabaa محمد وحمسة ما لقبت فكر كاس مدام أضيفه نطهاي اليرادة صوصة تسوقانها كل دوينة قبيض يما سوينك وارون ويد مجران أرتا واح مقارنة ساي حق السوقانتا اسكو حولا أما مقارنة ساي هيرقليا دارينتها وقت أنا مقارنة ساي كمهة لنا أو حيالك هاي أي أمسيين مركز درادد أنا مقارنة ساي تاير هذان كهابو واحد جرتا قفا وحبوطانية markaad wax danayso waxa weeyaan aniguna waxa markaan daneynayay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo noloshayda marka hore halkii ka soo jeeday qofku wuxuu ku faana waa dhaqankiisa taasuna wax ku sheegan kara markaas daraadeed waxaan isku dayay awoodeeda inaan bal wixii suugaana aan garanaysaay laakiin ma jirto laakiin cid tiraada see wax u curisaayo halkeed maraysaayo ma jiraan إن شاء الله ويمن دونتا ما نسيت الكوبات بين سوق قاعدة لنا حمسة ومدني ما لا هذا طبعا مقع وين بين ورطها تقولنا
dabcan waxaanu soo qaadanaynaa maasada koowaad ee waxaa la dhahaa midnimo magac weyn bay wadataa dad badan waxaa laga yaabaa oo ina daawanaya hadda oo ka daawanaya shashada Bulsho TV inay macna guud ay u qaadan karaan haye goormaa tirisay maxaad u tirisay adiga daawadayaasha ee isku keen kala baxaya ما شاء الله نبغى مرحلة كذا مثلا إني سيد قرحة بدلنا برنامج كوضو وحوي قبل من من الآن باي وحسمي قبل داري سموينا وحسمي شركة كوكا دعي دجاج كوكا دعي بلاك البوليسية أيام سميه قبل إنه حبارسية فريق ربما ورنبال وحول هذا يوم تتكلم قلبك كسومال لا وحوش شيء من مدة واحدة تصالح شفرة بدل من مدة الله سقط ولوجيه waxaa jira maxay oday haddaan soo soo qaadano oday baa maxay xulaa sagaal wiil baa maalintuu dhimanayay waxa ku dardaarmo wuxuu yiri wuxuu ku yiri mid kasta oo bul qaad buu ku yiri bul u sheekay jiray buu ku yiri nin kasta uu sheekado ka diman buu jiray dib waxa dhacay yar wuxuu ku yiri sagaal golood isku xidhan wuxuu buu jabiyay buu ku yiri wala jabin kari waay xigmada ku jirta waxa wuxuu ku yiri midnimadu waa wada jiro waa guul marka hadda xabad qotaan saxsan ka jibnay laakiin hadda midnimadu shaqaysan midnimadu ka jibnay marka kale kan waa dhambar wuxuu xambaarsan fariin wuxuu u lahday qalbiga Soomaaliya لما قبل يوم بلامي أروح دعية ستنبو دعية مسكح جاحنا يسيا ما باجدودو مرتي سايرين عيه مراد كي يجوح يهاي مدن وجاس كي يسمرون من نمدي إن المران كساره مدن أدي ترادا وجاسو معيلي كلم مصنوعين ما كان يبوي المرهدو إلى هاي ومقبولة عادي مو كانوا وحيك ما قال متانه سمرون من ما أتمتوا ما أنت وحي هيك سنيان ماشي يا بياشود ما الله وجميسته مرق لا صحيح ذن مبدأ حموه واردب مدة كلامنا مصاص كي يطوعنا مرارين وجاسو ومدي بكلجي مدي لصوب صدي مشغول بيك يا نو ماشي وقبيل بالله مريد حدوده مرجوك تأيال مدي بيك يا نو مضى حكر ومقادن وحلا مهنا يوم كالشعب كتبيا ما داركينا نحيرانو وحمور كسوغيا أنبا مال كسوغيا midnimada ummadda iyo muwaadiniinta maqan ee maalka shada shisheeyaha inay muujiyaan hil mawlihii ilaah baa ina dhigay dhul mugweyn wax samaan ku leeyahay midnimuu rabaayo marsadaa lughayaal laga maalo caanaha muddu shacabku tabayay waa la milicsadaa maguurtada aad leedahay mafac laga sameeyaa dabadeed la miirtaa ood maaran ku gaadhaay macdantii baa tigtigan buuraheenna dihan oo dheemanka iyo dhulkaa dhexdooda muquurmo muruqeenu sugayaa inaan kala miirnoon meel kastaba adduunyada malyuumaad ka siinee ma nimcay naga maqan maanka oon isku geynoon mafacsanna dhulkeennaa lagu maarmi karayaa meel sarena ku gaadha mid bay naga maqnayd oo mabda meel quraata ah maskaxdii iyo qooyahan murtidu ugaasidhi maantaanu heshanaynaa malaxumuhu waa dhibe maalmay ciilanaayeen dadkaan maanta faraxsani micidii ismoogaan maanta inaga go'aysaa mar hadduu ugaaskii mar kalena uu soo galay mugga hadalkii uu yidhi midigta isqabsada mid ulaa tihiinoon kala maarmin weligood ummad meehanowdoo muddo kala maqnayd baan majarahay sugaysiiyo madaxdeedii joogaane maantaba ilow maalmihii ku soo maray maamuus talooyinkan meeshan aad ku gaadhaan midhahaa ka soo baxaa meel buuxinaayo muddo dhexalgalaaye maamuus talooyinkan meeshan aad ku gaadhaan midhahaa ka soo baxaa meel buuxinaayo muddo dhexalgalaaye maqal tashigu waa guul maamuus gobeed iyo waa maydhax wada jiris mahuraana weeyo hadduu kaa murgana waa mur iyo dacaroo waxaad muudsataa maatidoo baabaadiyo magacaagii oo luma midnimaa dadkaygoo muhiimadeenu tahay meel kastoo aan joognana aan ka muuqanaynaa milgahaan lahayn iyo magaceenni aasnaa markaasuu hirgelayaa saamigeenna maqan intaan mulkiyeyneen meel saarayna arrinkaa meel quraan u maraynaa wixii ay mudnaayeen ummadani ballaadhani masallahaan u dhigaynaa ma seegayna taladana mana kala maroorno mid gada buursiyaana ma gartoow ingiriis markii uu carrada yimid miis baa lala fadhiistoo muqodo bayaalaha saxiix lagu muujiyo markaasay fadhiisteen marsadeenni saylace muddo fog ayay ahayd malihii markaa jiray maantana ma guurine meeshu waa halkii uun madaxtooyadii adal midhihii ka beermiyo waa madal aqooyahan mahuraana weeyaan waa tahay daawadayaal intaasaan kaga imanaynaa maasadaasna dabcan wacyigelin bay ahayd shaksi kastoo daawanaya telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV barnaamijkana hadda nala socda waxaan filayaa wacyigelintaas uu xamsa dirayo inay ka faa'iideysanayso intaasaan kaga imanayaa maxamedow
waxaa jirta wax kastoo la bilaabayo carqalad bay leedahay intaad ku jirtay sugaanta maxaad leedahay carqalad nooceed ka xusi kartaa horta sugaanta markaan ku jiray carqaladaha waxay ahayd sugaantii markaad samaynayso eenad aqoon u lahayn eed weydo qof kaa toosiya markaa waxay kugu noqonaysaa carqabad markaa aniguna sugaantii si ayna carqabad igu noqon waxaan ka hortegay inaan horta sugaantii laba dhinac ka galo dhinac inaan dadkii hore sugaantoodii baadho oon raad raaco dabadeedna markaan raad raaco waxay ii fududaanaysaa sugaantii inaan anigiina curin karo oon soo bandhigi karo markaa sidaa daraaddeed dhalinyar aan asxaab nahay oo sugaanta ku jirayna way jireen oo waxyaabo badan iga toosiyey oo yidhi saa ama habkaa u raac ama saasna way jiraan sidaas iyo labadaa dhinaceen aan u taagsanayey labadaaba waan ka galay xamso fanka ama fanaanka ama sugaanyahanka ama qofka maasada tirinaya waxaa la yidhahdaa badanaa waa qof haybadu ilaahay u siiyey ma ka soo jeedaa family faneed ma is leedahay fankaad kaalin ku leedahay maasha allah nimco waxa weeye fanku saddex xubin waxay ku yimaadaan waa hibe keentay hidda keentay iyo hawl keentay anigu nimco waxa ka soo jeeda qoyskii fankii sugaanta soomaaliyeed والله من حريصك وسوي شيء يعني عبد كامل حوالي يقول لك كامل حوالي وسوي شيء كنت أنا وحنا حيل تقول فكرة إنه حديد اللي يعني دعاء هداه خلاص واحد جاء يعني هس أما ما صير يرجع ما تلوجر أو من ناس أسويا شيء بس هذي بدي سير بتري فك حكيت فيك واحد بيجي فك دعاء هداه ما له حقولي واحد وصل عيرية بسرعة فك رتم حوها ما سويدي حكيت فيك تما سويدي تقول حي شو تقال كي يورط بيت شوية وحكوا شوية هلين هو بالوين جاهي هو اللي يجسوا اللي جاه يبين عيان حتى هو بيسوقر وبروي فنكنا هداها يمضي ذي جرقن كأنه هجا هلا وخيل عليها هل كوا وبيه ردي هذانا أذر كي هنتي ومبان أنه هرايون مقدار ما صلوا ولا واحد يسيد تقولني فاهمين ما فيلي ما نسيت أقول كي نسوق قمرنا محمدو هي قوم مع ترسي محاضر ترسي ما دام معنا جودة تدك فاهمية طبعا قبل كان جور كلا يرادو وحن كجهدي waxaan tiriyay 2013 gabayga waxaan kaga hadlayay horta guurka waqtigan aan joogno iyo guurkii waqtiyadii hore la isku guursanayay inay u dhaxeeyaan mabdi weyn inay u dhaxeeyaan guurkii hore waqtigii hore waxyaabaha laga hortagi jiray waxay ahayd gabadh hadii la guursanayo in waxyaabo badan laga eegi jiray dhinac badan dhanka reerkooda say ku tahay waalidkooda say ku tahay sida wax u qabsataa hawlkarkeega dhinaca ay ka soo jeedo dadka ay ka soo jeeda waa ayo ma dad magacla waxyaabaha dhan baa laga eegi jiray markaas oo gabadh hadduu nin doonayo waxa la samayn jiray xaafadda laga tuhmaya inay gabdha galaan ayaa habeen maalintii war laysuma hayo nin walba u mashquulsan yoo xoolo dhaqatiya dadku way hayan markaa wixii war habeenkii ayaa xaafadda dabadeeda la fadhiisan jiray waxa la dhageysan jiray gabadha waalidkeyga say ku tahay gabadhaas haddii waalidkeyga afka ku taagto ay caayido ama caytanto waxa la oran jiray halkan xidid nooma yaallo lama xididayna xaafaddan waa halkan waa qodax waa laga wareegi markaa gabayga iyo waxaan isbarbar dhigayay guurkan waqtigan taagan oo iyo guurkii hore inay waxyaabo badan u dhaxeeyaan qofku marka uu guursanayo horta wax laga eegaa inuu magaranaysaay xil matali karo oo reer maamuli karo oo la yahay qofkaasi waa reerka waa kuri isaga hogaanka u haya laakiin hadduu qofkii isagoo la koolkoolinayo oo isagiiba magaranaysaa la toosinayo hadduu yidhaahdo waan guursanaya dee isma qabanayso marka gabaygana saa darteed baan u tiriyey gabayga haddaan ka hadlo wuxuu leeyahay murtida gabay maalintan gardaasheen go-a saaro ma gowrgowra sadarkee garashaan u leeyahay anuu gabana baan aqaan godolmaalkiise maantana garbay tahay inaan gibisha ka rogaayay bal dhegaysta galabtana tixdan gaar u tibaaxo ka gaabsada ragow haweentaada afgaran weydaani iyadoo kaa gar daran bay kaa gar heshaaye iyadoo kuu gafaysaan lagu garaabayni abaal haddaad u gashana way isgarab marisaaye geenyadii la dhaqdhaabo marbay faras goba dhashaay geesigii lahaa markaasuu geesigii lahaa gaasa bixiyaaye dagaal hadduu galana waaquu ka gaabsanayne gabadh ninkii hankiisu rabe aroos u guuxaaya guuraha habeenkii midaad gurcidka u gudayso guur haddaad door bidoo lagu geed fadhiisto garcadaayadii ku dhaleen markay gabayga tiriyaan ee gacal iyo xigaal laysgacan qaado ee galbiskiiyo arooska gaaf lagu sameeyo
gayaanka qaar xalkoodu waa guracan yahay gambooley samankan moobil gadatay waa gal marane haddaad gashana walow cidi kuu garaabayne gacan haadiska yeedhmadaadun gibil waaban u haynin geed ubaxle iyo midaad laan guduna siisaaba iyo adoo barya gacal moodayay ku garoomisaaye guurkan sabankan taagan gocashadiisu badnaatay gargaar kuu lahaan jira samihii uu gaabtay guurtidii hormoodkuna bucla ay ku daaleen garaadkaagu miduu guyaal badan raadinayay ee gabanka oo dhan iyo dumar uga gooni ahaatay haweengaaridood baa gabadh laga xushaaye guul waxaa hanan kala gobaad ninkii helaye ku gafayn wanaagoogo asaarta nasteexo gabdhaha aynigeed iyo dhabeel u garasho roon gurigoo bildhaamiyo farxadaad ku gamaado guhaadinta naftaada marna aan ku guulguulin gunimo ninkii nacaayow ha isku gelin goombaarta allow gabadh xuuralcayna garaad miisaaman garashada dadnimada gacaltooye aalumin garafadhiga sheekada haasaawaha u gogol xaadha allow gaari dumartaan gobnimo laguba gaadhaynin gadaal socodka eegmada suuradeeda gaarkaa ama goray haldhaayo geyi wacan ka soo kacay guudka wada xariirtaa muddo badan la gaasiray dhaaxaan goobaye ay gees marin caawo waa tahay daawadayaal maansida guurka intaasaan kaga soo noqonaynaa waxaa jirta xamso wacyigelinta dhalinyarada maxaad is oran kartaa waad ka wacyigelin kartaa maadaama kuwa muddooyinkii ugu dambeeyey ay geyga soomaaliyeed uu saameeyey aafada taariibku maadaama maasooyin iyo gabayo fara badan aad tirinayso hadda kamid ahay taad noo soo qaaday midnimada oo dhinaca wacyigelinta qabiilada iyo howlaha kale aad kaga hadlaysa waa dhankii dhalinyarada absolutely nin way u maasan tahay waxaan oran lahaa dhinaca dhalinyarada horta aafada tahriibka aafada tahriibku sida khatar u tahay ha ku dadina dhaca aafada tahriib qof naftiisa haligay qofka tahriib dalka adiga kuu baahan dadka kuu baahan dalkaaga hooyanaad aaminto oo noqoto qof muwaadina nin kasta abaadiyada meel ku magacaabay halka ilaahay ku dhaliya dad aamin weydo waxaa noqonaysaa nin aan bilaa haybada marka haybada waxaad ku leedahay kulliga awaanintii hore anaga maha awaanintii hore haybada waxaad ku leedahay dhulkaaga waana lama huraane hagarlii wax ku qabo awaanintii hore kaad markaa dalka iyo dadka aaminaan leenahay dadka tahriibaya runtii gabaygan soo qaaday dugsi waxbarashadu ka had iyo wiilka sheekeynaya waxbarashada iyo dadaalkeeda iyo qofka waxbartaa siduu yahay uu iftiin qofka waxbartaa carruurta waxay tahay cilmi been cilmi nuur oo jahlu dulaan cilmigu waa iftiin halka jahligu mugdkeeya markaa waxaan ka hadlayaa maasida dugsiga waxay iftiiminaysaa dadaalka iyo waxbarashada sax markaa maasida dugsi oo bilaamaysaana saasa loo dhacaysaa daafurkii daadaydow dugsi duruusi taallow dayr nabadi joogtow dalka aayihiisow dulmi jaahil tuurtaya darajada rabbaa wada dadnahu ugu deeqee duxdii waxbarashiyo durdurkii aqoontaan daawano ilayskii daafahani adduunyada dow nooga saariyo daalacanay aftad kale oo doorka nolosha damacnaye dalab aadmi jecel yahay cilmi waa u door weyn dadna qoyska ugu filan dareemoo naftaydii waa kan daadaheeye dulqaad arday lahawo hadduu goobi weligaa intaasuu ku idil yahay ayaan filayaa maasada dugsi daawadayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta isaan hore usoo xusay waxaa marti iigu ah xamse iyo maxamed oo kamid ah daayarta kusoo biiraysa suugaanta iyo halabuurka barnaamijkeena faray kama qodna maasooyin fara badan iyo weliba dhextaal fara badan ayaan idiin hayaa ha ka caajisina barnaamijka halkaad nagala socotiina waa shashada madaxa banaane bulsha t v maxamed waxaan soo qaadaynaa maase kale waxaa tiri naftayda haye su-aal haye maxaa looga jeedaa talo mito adiga ku dhacda horta no adiga naftaadiisa su-aalaya mito adiga ku dhacda mito bulshada ku dhaca maadaama fanaanka iyo weriye iyo abwaankuba uu ka hadli karo un bulshada mito adiga mise waa bulshada iska ballaaran ee badda ah horta maasadan dadku inta badan waxay u maleynayaan in aan qof wax ku dhacay oo kale laakiin maaha waxaa jirta maasada haddaan in yaroo kooban ka iraahdo hordhaceeda waxaa jirtaa waqtiyada qaar beri aadan ama qof haddaad ishaysataan ood islaynaysaan ama colaad ama cadaawad niga dhaxayso waxaa dhaba gooraha barkood in qofkii laydin dhexdhexaadiyo oo qof kastaaba dhanku ka soo jeeday dadkii guurtid wax kasta gola laynii ballaadiyo oo la yidhaahdo waxaa niga dhexeeya nin kastaaba la qanciyo ama loo gar qaado kii gar daran laakiin waxa weeyaan adiga iyo naftaadu haddaad ishaysataan yaa ku garnaqaya ya markaa naftaadu adu waxbaad jeceshahay iyadna meel bay kugu wadaa noloshana dee waxa weeyaan qof kastaa waa noola waa dhintay waxaad ku dambeynaysaana waa xabaalun markaa naftaada anu waxaan leedahay naftayda oon lahaa horta xaggee taagan tahay
ولاد حاجة بصعب. قرطني معي الوطنية ما كهذه محمد جعل محمد ضام على لفتي قاضي كل جعل كنا لو باهي إن الوطن كان لقى هذا أو عن صحية وحياة نفتنا دليلنا لهذا السياوي هبون أساس هاي مركا سادرتي أيام نفتي ذو سؤالي أو تعاقد كسوغان تاي waxaan leedahay maasadu salaamaadka yaasiinka suuradaha quraanka sidoo mawla sheegay adoonkiisan taagay xaqiisa ku gacan sayray qiyaamaha siisan waayo isla weyni sabeeya inuu silsiladaha naarta aakhiro ku soli sida miyada usuntii adduunyada sideedaba waa xarig lama sitaaniyo sida weeyo go'ayo kula siiban doono qofba saacad weeyo waa laga salcaaliye inta saaka joogtaa waa sida habkin sankaraadka geeridu waa sada kubaalo cid kastaba sugayso sina kuma nagaanay naftayda su'aal inagoon saseegin wax kala ku sanqanaynin tibaax saxaysi weerahaygo subkaan ku sigibtire saadirkii ku uumay sidoo mawla ku yiri eeba ma sujuuda ma tukataa salaada sunna iyo faral alla ma usicitahay rasuulkeena suuban sifadiisa qurxoon surinkiisii ma haysaa xageebaad ku sugan tahay xaalkaagu siduu yahay miyaad sahan habowday saamajiid miyaa tahay sahwi miyuu ku kala riday samaaniya xumaan ma ku kala sooran yihiin mise waa sal qura dadku miyay ku sanifaan sixan miyaa ku dhaqantaa mise gaaguraa tahay sifaagu muxuu yahay ma seexataa habeenkii adoon cid sagsaagin sanku neeflo oo idil sunku haysan uurkoo kaba saaray caloosha subaxdii ma toostaa sareedada adduunyo saamigii lagu qoray sad waxaad heshaba miyaad saluugtaa mise waad ku saagintaa yatiingaajo soloto surmi iyo haraad qaba saranseer kaleyle soo maray habaas kulul soo dhawow intaa tiri ma ku sabtay sooyadiin suldaarada ibliis ee lagu saliday aadmiga intuu seeto ku dhigay sadrigaaga miyuu degay adna daba saqlaysay sawirkiisa beenta ah naf yahay suulsan aakhiro su'aala kugu sugaya iilko haddaad simbiriraxdana cadaabkiisa ciira salka lagu dhigiye sidaa miyay dan kuu tahay iminkaad saxiyamaan garaadkaagu sugan yahay safarna waad u socotaa intaan seefta kugu dhicin quluubtaada sifeeyo saadaashaada wanaaji samankaynu joognana ma sahlano umuuryo qoofil baa sudhanoo haddaad suldaartana kama samata baxaysiday samaydaadu iyay lumin sirjigaa ka adkay maasadaasna taa halkaasaan kaga baxay maasadaas dabcan naf baa lagaga hadlay intaas waynu kaga imanaynaa sugaanta kasako maxaad qabataa arday baa tahay ma حنا وحن كو وغاينا تشوفي تاع هي سوغانت كسكو طبعا هان اوغانا سي هور جوابي ددكن حد كلا قبطها صح نوعي كنتي waxaan ahay ardayda weyn oo baas xaafada ku jirtay soo marka runtii insha Allah mustaqbalka waxaan rajeynayaa in dalkii dadka loo qabto mustaqbalka dhow nisuxufiyo dadkii dadka oo shaqeeya barnaamijkooda jeedin doono muusiga salaama ka hadlay insha Allah dabcan dhinaca suugaanta kaalinta kaga jirto iyo saxaafada inta waan kugu soo dhaweynaynaa waxaan soo qabanaynaa maasada 100 jeer maxaa la tirinayaa oo tiradii laga soo qaadanaya 100 jeer صح ما شاء الله إلى محمد وحين وهذه مرة وجعلي يا هولي سنة لهذه أظن ما حد نطق واحد الوداع ونقول إن محمد يقول كي نفتي يجعل كي عروقة بس إن عروق وطني تعاون حباصنا هنتي قبل كل ولو بحي إن السوقان تنقطه مملكة قاركودات مملكة قاركودنا وعيقرين دتك لوهايو مملكة قاركودنا دتك لقك إيعاش ماذا برنامج كفنك يسوقان تكاس وتاغية مركزتا إنه أبوانينتي فنانينتي عيد كستوي شاشة بروشة تي في داوتا وقرحين كرو أدبان كفر أحسن هاي برنامج نوعنا إن نعاول لكم هاي absolutely نبغى بقول لكم شر قبل نروح نتواصل قبل يجي نتواصل منه نتواصل مر ورق واحد يتهاجم هو مركب بشيء يتهاجم وحنا هذا يعني مسج كي ورا ندري إنه سفر كور مخنا كده بتجي كنا كده ضد كم بقول لي هاي محل عقب النادي وأنا أقول لي فرين بوضع مركب هذا يعني بقول لكم شر waxaan kala waxaan yani taas waxa jeer baan hadlay taas oo jeer baan insa dhahay taas oo jeer baan saasani fiican saa yeel way gabay marka gabaygan isna daadiis wax sawsi weyn ma isku daayay intii sanadahan ugu dambeeyay sabilahan ugu dambeeyay intii deegaanka shirkii gobol ka soo noqday uun baan ha muujida wadanida staat marka wuxuu leeyahay gabaygan oo bilaabay wuxuu leeyahay waliya kun jeer baan bulshayahay baraaruga بيت كستابا كوشيغا بالمحان لبا خيري بورتا سوتبيسا بحسني عيدادا برشادي تعلينتي بيتكي aqoonto
baabi'ii dalkeeniyo markuu burburkii dhacee barbaartii soomaalidu jahlibaalka saaree mugdi baaxad weyn yimid boorama miciintoo dadkii baydadka ahaa buug tacliinta lagu dhigay camuud laga ballaadhsho brofeseerada kacay 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegay bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa bara taariikhdaadoo boqortooyadii adal bartii fadhigeed ahaa berisamaad jaleeco beydkiisa ilac buu ahaa bartii ilbaxnimada bulshadu ka dhaxashaya waa baradii dhaqankoo waxay baahinaysaa sayliciga bilan ee barbaartu ciyaartee baalka dahaba lagu qoray bartaasuu ka soo baxay 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegay bal maxaa la bakhaylay buurtan soo tabaysaa beydadka taariikhdeen abid baabaayin baad bulsho yahay lahaydoo bil dhalatay baad soomaalida u tahayoo boqortooyadii england baa booqashooyinka ariyo barasho kuugu yimid oo barya ciidda joogoo kuu bogaya adigoo kuu qiray ilbaxnimo 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegaya bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa boqorkii ilaah baa beledkeena nimciyo barwaaqa ugu deeqo biyaha qulqulayo bartiiq iyo babayga beeraha camuud iyo ruqi baalaheediyo beeraha camuud iyo baki baalaheediyo ruqi badarka laga jaro booramaad ku cunaysaayo beeraha waxay too ku bahooba waxqabad 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegaya bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa bardal xiiska loo tago buudu way ku dararto bilic gaaro wadato badweyntaa dhexdeeda ah bara saacadiin oo booqashada dharaaraha baryaadigu soo joog 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegaya bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa bukaan socod ayaa tahay baadhitaan u baahan oo barta kuugu daran ee boogtu ay ku taallaad baabiis leedahay 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegaya bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa lugayo baalaheedii iyo baaxadii dhulkeena iyo badkii uu ku fadhiyay rag baa beero goosto biro soo afaystaye miyay boobi karayaan bilaash hayta weeye 100 jeer baan bulsho yahay baraaruga beyd kastaba ku sheegaya bal maxaa la bakhaylay buurta soo tabaysaa 100 jeer baan barnaamijkan doonayay inaan dhalinyaro noocan ku soo martiqaal alayna qooyin fara badan oo maxay daawanaya inay halabuur noqdaan macaan ka baqaya markaan kolba mid soo qaada kolba mid kale oo qofkii wacyi gelin ka sameeyay macal hawlay kala aan maxay la galno saxay wadadii ka hadalay inuu jacayl ka hadalay hawlay ka hadalay kulli badaabin iska qoranayna dhinac kasta oo faragelinayna waxa jirta su'aal baan jeclaan si mareysan idin weydiiyo maadaama tihiin da'yarta ku soo biiraya suugaanta iyo halabuurka Soomaaliyeed dhaqanka ama suugaanta iyo halabuurku wuxuu lahaa kaalmo kala duwan haday noqoto ciyaarihii haday noqoto qoraaladii kala duwanaa iyo golka fiirsigii la soo fariisan jiray meesha ee dadku ay u baahnayeen inay ku soo bandhigaan hibada iyo haybada uu Ilaahay siiyay iniga go'an tahay inaad soo celisaa suugaantii Soomaaliyeed hidihii dhaqankii Soomaaliyeed kaalmo farbadnaayay Soomaalidu lahaayeen hay adan kugu horeeyay ما شاء الله سؤال شخصي بلودين معي إن هذه أدنى كلام هذين وسؤال هذه هذا كل بدن وسؤال بهان الله يفتيني بشدة بحاول يطلع بحاول تاعنا إنه أعطيك أرتيس كا ولو تهين إمر بحاول تاعين فرين ولا بالوضع ما دام ده بالوضع نهاي أو ضد أبونا نهاي واحد عنا هاي إن المر ولا بهم تكسوك بينو وحي عندنا عيدان حبارسنا إن نهديها خرقان هديه دمك ولو تهين كرير قلبي بدنا جلتوني كتر شوية تبغى نهدا مركب وحنا كل بيرنا إن شاء الله هدينا نقرشية هدينا نقسمه إن كستو تياسك قبية هاي بنور شوية دبستني هذا فكر حلوني سين كله لها ولو تهين إن قدر ترت المجال ده وقت وسيلة يقول كلاه أو حافظ أو فايدة فرق حافظ أصوب برنيكو يضو يقول العياري سيلة يجي العياري جاردات وحيقولون نسقط طريقين يعني ما شاء الله مجال ده فايدة فرق ما بسوي كل ده كل ده بس وتقول له أو واحد يسوي تدرك عيار كده وضو تعمل تعرف كم مرة سوم حدية يودينا سومن دي توبي وكله مركها هو ده الجاري يوم حدا ورمر الجاري مركها ده لو سومن تروح حاجة عباس وجاره هنا دافع إن شاء الله حتى قرب حلو وحكون جموينه إلى ندي بسوء له تاريخ المحل السيرية. سوغانتي. هيه فكر كام محمد؟ وأنا أعرف عن سؤال أنا نمعي وحنا يبعني إني مرة لنا ويديو والله يراو أو تعرف سوغانتي. مرة سوغانتنا ده هرتارونتي طبعا كي هراي سيد لو بدأ مجري. هرتا ده كو يلا بيسكع لو ما كين كرام لما أوران كرام. لكن واحد يسوي ده يساوي هرتا السيدات ونورين كتاعود
gaarsiin u leekaysiin kartaa taasi un baa naga go-an insha allah haddii ilaahay yiraahdo oo dee suugaantu waxay had iyo jeer xamaasad iyo xal ku leedahay in ma garanaysaa golo marka loo dhigo nin kasta oo fikradiisa soo tabiyo oo waxaan ku yiri waqtiyadii hore dee nin walba hal xidhaale la isku xidhayay nin kastoo firfir yiraahdo ordada hal xidhaale la hordhigayay hal xidhaalaha hadduu ka tallaabsado dee waxa loo yaqaanay nin aftahana oo meel kasta gali kara laakiin inaga dhulkeena waqtigan taaganahay nin hal xidhaalo kugu xidha iyo ninku yiraahdo horta halkee u socotaa ma jiro waxbaan abuuraa bis waayo dhaqaaji u socdaa ya marka qaar caawa waxaan kaga faa'iidaysanayaa maansoo inkastoo aan kusoo darin aan ugu talagalay hal xidhaale rag suugaanta sameeya oo hal xidhaalaha doonaya inay furaan laakiin caawa nasiibkooga badbaadeen waan ku xidhi lahayd waan gartay dhimbale wax kastoo wacyigelina cid kastoo u baahan inuu barnaamij noocan oo kale uga galo jecel dhaqanka iyo hidaha soomaalida inay kaalin iyo meel gaarsiiyaan inagoo sugaayahana iyo inagoo weliba warbaahinaba waanu soo dhaweynayna insha allah xamso maxaa kaa farxiya maxaasan necab tahay marka qaarkood waxaad aragto eed ku faraxdo amase aad necab tahay inaad aragto runtii waxaa horta nimcay farxad weyn farbadanya hantu way fara badan tahay qofka biniaadankaaba inta ku saaran yahay labadaba buu nool yahay marna waa farxaysaa marna waa naxaysaa marka way jiraan waxyaalo fara badan oo iga farxiyaa way jiraan waxyaalo fara badan oo iga farxiyaa way jiraan waxaa kaa naxaya marka qaarkood ma jiro horta waxyaalaan iska filin maxay dayaan meel gaaban iga soo goodaan adigu ma badan laakiin marmar waan arkaa waxyaalo iga naxaya marmar laakiin inta badan farxad oo badan hani maxay hataan halkii fan ku yar noqdo وأنا هروح وسوق هذا الوطنية نعم وطنية الفرق يجوا الله محستين أقول كوينا عبد كان عوارف تقوله إلى أن حريصنا كورة وسجى أقول أنتوا هنا قبل كلام حريصنا قويسكي الله محستين أقول أنتوا هنا حشق من كل مدينة أقول أنتوا هنا مصامرية أقول لكم الله محستين ما دام قويس كان كسوتشي ذو أنا واحد بيشدي حسوسنا عرفتي ريدي صورنا وطنية أنت طنا متهاجي قلت هي gabagabadii daawadayaal ayaynu soo gaarnay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta fursad baan siin doonaa ay ku salaamaan kuna mahad celiyaan cid kastoo kaalin ka siisay kaalintan ay maanta ay joogaan abwaanintan daada yar caawa barnaamijka igu martiya masooyin fara badanna waa inoo hadheen oon kusoo gabagabayn doono barnaamijka intaa ka hor waxaan jecelahay inaan mar labaad ku noqdo maxay ahayd xamse maasada falastiin haye waxaad kaga hadlaysaa waqtigii dagaaladu waxaad kaga hadlaysaa geyga Soomaaliyeed waxaad kaga hadlaysaa dana gaara si jacaylkaaga ma qaranaysaa Falastiin noogu bedelaysaa hayahay nimcay caawaan waxay shaqeynayaan dhinaca wadada shaqeynaysaa saaxiibkeen maxamed dulday caawad dhinaca jacaylka iyo guul iyo saas ayeen maxamed aynu teynayna marka gabayga Falastiin maasada Falastiin waxay ka hadlaysaa maxay daanta kalbeed qasay ay ka hadlaysaa sanadku markay ahayd 2018 nimcay u tahay yuhuudu inta badan gacan farqu bay ku hayaan Falastiin فرق بقايا ودك تهي مر والبا سند والبا حلا تاعك بيش يقول أو بالبيبل لا تاعك سند والبا لابد يكون يستيزي رنتي واحد عادي أنا إنه قبض حماس فرق بدن أو سائن فلسطينيين هو فرق بدن هو يوين فرق بدن أي رنتي النهار اللي قلعي فلسطين ما قف مريا قف حد سوي قاعدني هو وحسميني سوي كان برتاك في عتي شاشة التلفزيون في عتي أيام ويا يعجبون كنت وحنا مراجعي ما دام تقفت الموجود مسلمات ولا لها وضع قريسة ولو تهين waxay sameynayaan فلسطين oo wax ku yaala masjid aqsa waliba dadka galbeed ay qasaan wax ku yaala masjid aqsa ayaa ku yaala waa qayb kamid ah maxay cibaadadeena marka aad aragtaa arrinka Falastiiniinta ee Yahuuda wad ka xumaanaysa marka waxaan soo qaatay arrinkaasi gabiga Falastiin gabigaas soo qaatay adoo wax yar aan ka dhex galay adoo wax yar nooga xusi doonay inkastoo waqtiguna dheeriyay barnaamijka hay maxay ku bilaamaysaa waliba waxay ku bilaamaysaa wuxuu leeyahay gabagani adduunyadani astowdi arrinkeedu soo go'ay eedaadka Falastiinigoodkoodii dhimashiyo dhaawaca ku sii wada egal qabahani gaalka dhabta hadii aan loo qaban wax oo dhooranaaye meeye islaamkii halkee ku noqday yahuudigani dhaartay dhimashada islaamka iyo dhiigun ka helaya in badan bay Falastiinu dhabar adeegtay waa inay dhadhamiyaan dhimashadu waxay tahay dhimashadii badatay dhiigii isbiisay shacabkii barortay Beetelquds dusheedii banaanada u soo baxay qeyrada ay gelisaa qalbigayga xaadhe hadii aan ku culus yeelay dad gaar siin karo hawada ka gumilaha مسلمكي مسكحدي يوم تقولوا هاجري هالكي بكم مغيّن سيد علي وركيسي هالكي لقوا بينيه أدينكي بلال يو إعداد كي إسلام كي هجريادي صومري هالكي لقوا في الماما إني قال درنت هاي وحنات كجرتهم حرمتي إسلام كي مكسدي وهيستين مركين نبي عايشين اللهم صل وسلم عليه أيابين ضروري نبضي تحت الله إنك يا قارده قلت بينوح intaas dabcan san horowso xusay daawadayaal waxaynu ku jirnaa guntiga gabagabadii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta maaso hooyo
عليه وحا أقوى نكسن عالم كما كدين على الله حقي هو يقول ما ترسي محل وترسي ما دام ودتك يوضا قرنيا لكن ما تؤدي كو قارم وإذا بو ترسي مبرشدين تالك بد إن أفيان وطهي هي كلي هو عيد كستنا ده وردش إن كستابا ده كلي إن كسو هو يدا ليجو ليجو ركبا كسو عدين مركا هو يدا waxaan ku yiri anna waxaan sii raacinayo ragii marka waxaan dhacday maalin baa waxa dhacday habeen ayaa waxa dhacday aniga inaan saxaabnahay ayaa isla socday rabaan bay ahayd waqtiyadii ugu dambeysay dhexda markaan sii soconay suuqii ka tagnay dhexda sii socono ayaa waxa naga hortimiday bajaaj waxyaabaha igu dhaliyay bay heesta inaan sameeyo bajaajka hadda waxa la socotay bajaaj saas inoo soo socotay iyadoo saan oo soo socotaa ayaa bajaajkii rogmatay way dhacday bajaajkii waxa la socotay markaasaan ku yaacnay waxa la socotay gabadh daayar oo ilmo yar oo dhashay iyo ayeeyde iyo ninkii waday wallahi runtii haddaan taas waxaan malayn in aad ku laagay haddaan ka yeelayba marka waan ku yaacnay aniga inankii markaasaan waxaan ku yiri gabadhii iyo wiilkeygii ayeeyde waxay ku dhaceen meel dooqa oo biyo waxaan ku yiri gaadhidu soo dhex marayeen marka gabadhii kii yaraa intay soo qaaday iyo aanii dhiibtay iyo intii walaal ii qabo ayeeyday baan garabka soo qabanaya kii yaraa aan qabtay kii yaraa aan haya ayaa gabadhii marna kii yaraa aan hayay unba ku soo ordaa oo tirada way malaha u dhintay malaha ma noola marna ayeeydan ba ku carta ayeeydan marka soo taabato isla markaa way soo rogtaa markaas waxaan xasuustay gabadhii iyadoo waxaan ku yiri dhaawac saaran iyo waxaan ku yiri biyaha ka daaya inayna iyadu dareemeyn oo ay magaranaysaa keegaya iyo ayeedeed oo magaranaysaa ay laabta ku hayso marka maasada heestaas ayaan markaan xaafadii tagay ayaan waxaan ku yiri baan si biyaha waxay leedahay hooyo samaantaada samirkiyo dulqaadkaaga ruux adiga kula siman saadirkayba muu dhigin sinaantiyo wanaagaaga sifo weeyo ku qaado rabbigay ku siiyo saba khayr la kugu sugay suubanaanta wacana adaa sida xilkeedo sabigiyo dhallaanka sawdkooga macaan adigoo aad saxayso saaq lagu helayno seetadii barbaartiyo soodintii ummadday haybad ee basaaray saaxiga aadmiga halka laga sarbeermo subxaan kugu ilhaamo 9 bilood oo gow ah ku sidaysaa uurko saacadii la eegaba sidriga aad ku hayso sinta intaad ku qaaday 2 sano dheeraad qoraadada siiso hees markaad ku sabayso libintaysa saara hablo wada siraadano qurux lagu sargooyo suuradoodu wacan tahay dabeel ugu sareeyo surinkay marayaan raggu sahansadaano oo ay sadaalyaano sacabka u tumayaan safar dheerna loo galo oo yaada u sababe suldaan lahanan karo sooriyeeya maantida garta saaf yaqaano halyey lagu sifeeyo subciinaya diinto madax saldhigeediyo dadka iska saraysiin oo yaada u sababe hooyo isinkaada sama lagu helaayo saaxi loogu damaayo saani loogu dagaaye hooyo isadkaaga sareedada adduunyo intaasaba ka joogto sacaadada wanaagsan meel sare ku noolow aakhirana sariija hooyo salaaniyo ducaa suulayban sahay kaaga dhigaya allow saalixiintii safka nebiga raacee kasifoobe quluubta suubana agtiisiyo jannadii la seexshay sadkaakaya guud ahaan khiyartana daawanaysa intaas waxay noogu dil barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii hal marad ka daawataan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa martideeda caawa igala qayb qaadanaysa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo xiisaha iyo xogaha gaar ah u lahaa barnaamijku iyaga ayaa u yeelayay dhinaca kamarada waxaan u mahad celinayaa daawadayaal Shucayb Maxamed Kaahin dhinaca farsamada isku dubaridka barnaamijka waxa kaalin mug loo muuqata ka qaatay injineer Cabdiraxmaan Dollar waxaan la socodsiinaysay isla markaana idin soo saartay anigoo Nimco Umar Xuseen taniyo toddobaadka dambeynteenu barnaamij lamida ku kulmi doono waa bahda Bulsho TV martidayda iyo waliba dhawaad galiyo hatino la baratamo qurux
la isku soo baxo badidood haweenkaaba runtii ka sidaata